nin oday ah ayaa afar wiil oo uu dhalay noloshu waxa ay tahay iyo si ay tahay inuu baraayo doonay baa la yidhi deedna wuxuu u diray baa la yidhi geed weyn oo meel uu yaqaani ku yaalay ayuu afartii wiil u diray midba wuxuu u diray baa la yidhi mawsim gaar ah mid wuxuu u diray guga mid wuxuu u diray jiilaalka mid wuxuu u diray xagaaga mid wuxuu u diray dayrta maalintii dambe isugu yeelo wuxuu ku yidhi baa la yidhi hebelow geedkii maalintii aan kuu diray sifadii aad ku soo aragta noo sheeg midkii ugu horreeya soo bado wuxuu waxaan arkay buu yidhi geedkiioo yacni soo biqlaya oo laamihiisu ay cagaar yihiin oo yacni laamo yaryar caleemo yaryar ay soo biqlayaan oo hadduu ilaahay ku rooyahay aad u qurux badan oo indhaha soo jiitanaya ayaan arkay buu yidhi kii labaad baa soo bado wuxuu yidhi geedkii waxaan arkay wado ubax ah oo hadduu ilaahay ku rooyahay midho dhalay kii kale ayaa soo bado wuxuu yidhi waxaan arkay geedkiioo caleemihiisu ay isbedeleen oo caleemuhu ay casaadeen qaarkood ay jaallo noqdeen in badanna ay dhulka taallo oo ay daadanayso ayaan soo arkay buu yidhi kii kalena wuxuu yidhi anu waxaan arkay buu waxaad arkaysaa mamaan soo aragay geedkiiyood moodo xaaba meel laga taagay cawlaankiisa iyo qodax keliya inay taagantaad moodo ayaan soo arkay buu yidhi deedna odaygii intuu wiilashiibuu u soo jeesto wuxuu ku yidhi afartiinuba waxaad sheegaysaan waa sax hal geed baa afartaas marxaladood ee kala duwan ama afartaas qaab ee kala duwan maray buu ku yidhi noloshiinu yaaysan noqon maalin sida aad u aragto noloshoo dhan inaad ku xukunto ma ah hal sano oo nolosha ay kugu yara adkaato inaad noloshoo dhanba ku xukunto ma ah noloshu waxay leedahay maalmo fara badan oo macaan maalmo cagaaran maalmo ubax leh maalmo midho bixinaya maalmo adagoo ku soo maraya ayay leedahay aragti yaroo kooban noloshaa ku sarjarna doqon baa waxaa la yidhi maalin keliya maahmaahay maalintiina maahmaadiisa u xumaata waxaa la yidhi wuxuu soo maray baa la yidhi maalin dad tacsi u fadhiya ayuu soo maray deedna hadduu ilaahay ku rooyahay goortii uu tacsidii dadkii wareystay lagu yidhi hebel baa la tacsiyeynaya hadduu ilaahay ku rooyahay ayaa wuxuu yidhi baa la yidhi hebel muxuu qaban jiray dadkii buu wareysanayaa marka deedna waxay ku yidhahdeen wuxuu ahaa xafaaroo qubuuruhu qodi jiro hadduu ilaahay ku rooyahay maanta waa loo fadhiyaa deedna intaas mar intuu yaabo madaxa qabsado subxaan allah yidhi ayaa moogta uu maahmaahaya wuxuu yidhi man waqaca xufratan liakhiihi waqaca fiiha ninka walaalkii godo qodaayay isagaa ku dhacaya kulaha marka doqon hadduu maahmaahana yacni waa ku go'aysaa maahmaadiisa goor la adeegsada iyo wax loo adeegsaday iyo maahmaadan ma yaqaan keliya maahmaadan buu yaqaanay ninka walaalkii godo qoda deedna wuxuu ka soo qaadayba ninka xafaarka maadaama dadka godadu qodi jiray inuu maanta isagii godkii ku dhacay hadduu ilaahay ku rooyaa laga yaabaa dee dhinac haddii laga fiiriyo waa macquul oo dadka maadaama godadu qodi jiray inuu isagii maanta god ku dhaco isla mar unbaa loo qodi lahaa laakiin maahmaada dee saa looma adeegsadee qofku macnaha walaalkii shar iyo balaayo u maleegaya isagaa balaayada ku dhaca ayay ahayd ninkana godkanba iyo hadduu ilaahay ku rooya waxaan laga wadaba godkaabay uga egtahay isaga godkaa wax u dhaafsanba ma yaqaan marka doqonkii maahmaahay doqon isnad dhihin jarta war inta doqmo xanaaqina asalaamu calaykum nagu qaata